taariikh dad bartay jira aniga dhaqaale bisa bartay dalxiis iyo dhaqan nin isku bartayna waa joogaa oo qaybta heritage-ka asiga loo aada waxa ku saabsan hidaha ummadu leedahay laakiin inta yaroo aan ka naqaan ama xiise aan u qabo aan isku dhibay inaan raadiyo taariikhda Soomaalida guud ahaan hadda laakiin waxa la ku soo koob xamar Muqdisho horta taariikh maxaa loo bartaa shalay hadday maantu ma jir lahayn haddaan shalay jirin shalayna ma jir lahayn haddaan daraata jirin adiga laftaadu magacaa marka lagu yidhaha hebel aad leedahay waxaad sheegay hebel kalaa dhalay aabbahaad sheegay awowgaad sheegay maxaa u sheegay haddii labadaas aadan aqaanin meelaad ka bilowda meelaa u socoto ma taqaanin ummadduna waa sidoo kale ummadda aabbaheed waa taariikhda shalay awowgeed waa taariikhda ka horeysa haddaadan shalay taariikhdaada iyo tiidaraata aqaanin waxaa tahay qof aan aabba iyo hooy magaciisa aqaanin soo u wareeraya yahuudda waxay yidhaaheen ummad haddaad rabta inaad isticmaalsato baabi'i taariikhdooda marka marba hadduu taariikhdiisa xasuusto dib u dhaqanaa muqdisho qarniyaalay soo jirtay taariikha muqdisho ka badanna waa jiraan oo gobollada laga helaayo meelo yaryaroo waxaa jira marka taariikhda ay ku harsaneed ilaa xorriyadda waxay ka dambeeyey marba qaybaa la duminaya weli waqtigii kacaanka meelo badanaa la dumiyey kacaanka kadibna waa lagu sii daray ingiriiska markuu yimidna wuxuu u dumiyey taariikhihii dhismooyinka ee talyaaniga isagoo ku xumaynaya taariikhaas marka haddii hadda aad tiraa muqdisho intaas sanay jirtay nin dalxiisaa ku imaanaya ingeegu ku leeyahay aan tagay gurigaana laga dhistaa leedaha marka intii ku aali jirta qofkaa yeelaysa ma jirto adduunyadana dhagax yaroo meel yaal waxaa lagu leeyahay boqor hebel maalin ku fadhiistay dhagaxaan waa la xafiday dhagax sida historiga loo ilaalinayo ayaan waxaa arkay qolada turkiga masaajid meeluu ku yil oo duq ah oo dhowr kun oo sano jiro daadada ku yimid bir tareenaa la sameeyey masaajidka dhammaan si geed loo soo tallaalay birtaasoo dhammaan kor u soo qaaday waa la jiiday 30 kilomitir meel u jirta meesha oo daadada imaanayna masaajidka soo sidiisii la dhigay intaas waxaa loo sameynaya in la ilaaliyo waxyaabaha dhaqanka ay ummaddu leedahay xamar inta aa xasuusto ilaa 7 taalo oo taariikhiyeed ayaa la burburiyey mar hore waxaa lagu daray dhismooyin kale ee taariikhi ee matalaya adduunyadana waxaa jirta mid guryaha taariikhda lama taabto haddii la taabto ay wax ku dhacaana sidoodii in loo dhiso xamar weyn oo kale haddaa aniga guri badan ku leeyahay ama guri ku leeyahay iga dumo sharciga waxaa weeye guriga sidiisa inaa u dhiso haddana waa aragteen dabaqaa laga dhisana waaba la helmaama soo ahay sharcigaas ayaa la fulin dhismo taariikhiya hadduu adigu aad degantahay oo kaa dumo waa inaad ku celiso siduu ahay ma raba inaan ku dheeraado walaalahay waa mahadsan yihiin iyagaa u daahay galabta oo saacaddaanaan gaaray adinkana inaan idaayo ma rabo xataa qadami aad ciddu xaali qadadeeda halay reeb waa ku cashaynaa saan meesha u sii jooga saan dhibka u dhicin marka waxyaabahaas taariikhiga oo aruuriyey dhowr kun oo sawira ka haya wiilkayga waxaan ku yidhi xalay war qaar iga soo qaad saa projector ugu daaro intaa hadli lahay aan dadka tusiya aaba wuxuu dhahay 300 aan samayn karaa saaka marka arka xore 170 xoogaa aan sameeyey hadda waxaan diyaar u ahay 170 kii xoogaaga ay tusinaa falaashka ay ku jiraana iyaga hadiyad u siinaa waa baasantiin aad mahadsan tahay professor runtii way aragnimadaada iyo aqoontaada runtii waa dhaxal weyn oo laga gayoonaynin waxaan rabaa waxaa jira xarumo iyo rugo taariikhi ah oo magaalada Muqdisho ku yaala kuwaas oo huwan taariikh weyn oo runtii marka dib loo raaco ilaa dhowrkii qarni ugu dambeeyay ka marakacaya waxa kamid ah qasrigii Sayid Barqash oo mar magaalada Muqdisho laga maamuli jiray isagoo wakiil ka ahaa khilaafadii Cusmaaniyiinta waxa kale oo jira qasrigii saldanadii Muqdisho oo runtii iyana taariikh fog leh waa laga warami doonaa iyo korniiska magaalada Muqdisho waxaan rabaa Cabdiwahaab Axmed Cali inaan weydiiyo xarumahaas waxay wajahayaan halis ah inay baaba'aan oo dabar go'aan ama la baabiyo la dumiyo maxaan ka ognahay xarumahaas taariikhdooda seese looga hortagi karaa inaysan baabi'in
aad u mahadsantahay Bilaal adi iyo saaxiibaday marti sharafka aqbalay inay nagala soo qayb galaan barnaamijkan iyo martida kale ee aqoontooda iyo waayarnimadooda u helan maanta inay nala wadaagaan waa laba su'aal tan iyo markii Soomaaliya ay dagaaladii sokeeye ee gashay waa meel kasto sector kasto nolosha kamida waxay wajahayay dayac waxay wajahayay wareer wajahay mana ugu sii jirin sektarada aanan marka horeba dadku aysan ku baraarugsaneyn oo dhaqanka uu ku jiro adduunyada dhan walaacaas qabta walaaca ah in sektarka dhaqanka uu yahay sektor dad nuqbaa uun ay ku lug leeyihiin nuqbada badnaan kala badnaan karto ummadaha qaar dad badan oo waxan ku shaqo leh leeyihiin ummadaha qaarna maba lahaba oo umaba samaysnaba nuqbadaas waxaan ku jirnaa ummadaha aanan wacyiga badan ka lahayn taariikhda reasonkaas uun maahay waxaa jira sababo kale oo keenayay in dayacaas uu samaysmo intaanan burburka uusan dhalan markii burburka uu dhacay dhaqankeena si guud dhaqanka markaan ka hadlaayo waa habnololeedka bulshadeenoo dhan wax badanaa isbedelay wax badan oo aahaaraha waa la dumiyey alaab badan oo alaab dhaqameeda ama antiquities ahaa waa la dhacay goobo qadiim ahaa waxaa loo bedeshay danooyin shakhsiya loo sameeyay waxay wajahayeen 30 sano la soo dhaafay waxay wajahayeen duruufo adagay wajahayeen maanta duruufihii ay 30 sano la soo dhaafay ay wajahayeen duruufo ka duwan ay wajahayaan oo dheeri ku ah oo tan reasonkeeday wadataa duruufaha maanta wajahayaan waxa kamid ah casriyoobida yani dadku waxay rabaan waxa lagu baabi'inaa dhaqanka goobaha aathariga ama goobaha taariikhiga ee magaalada leedahay waxa lagu baabi'inaa iyadoo la hubanayo shaar ah waxa laga dhisaa mashaariic oo casri ah laga dhisaa tusaale kale hadda meelaha su'aashaadii labaad u soo gudagalo meelaha magaaladan ku yaala ee wajahayo halista waxa kamida areadan xamarweyne ee la isku dhaho areada archaeologiyada waa area ka bilaabanayo bateerada ama guriga hadda dadka qaar u yaqaanaan lighthouse u yaqaanaan oo ku yaalo curuba ku yaalo la soo wareeganayo dhabarka dambe ee bangiga ganacsiga ilaa tagayo dekadii hore duqda tagayo areadaas waxa ku yaalay dhismayaal qadiima ku yaalay waxa ku yaalay qaarkood masaajida ku yaalay qaarkood qasriya ku yaalay hadda waxa socda oo lagu dhiirtay in la dhiso mashruuc guryo casriya looga dhisayo areadaas waana area ka mamnuuca in laga dhiso guryo casriya laga dhiso tusaale kale baakinka Sid Barqash uu soo gaaray dhismahan hadda laga dhisay bishii hore dhamaadkeeda sidaas oo kale waxa dhacday waxa la dumiyay raadkii ugu dambeeyay ee magaaladan ku yaalo ay lahayd boqortooyadii ajuuraan waa argayro ka soo horjeeday argada Safoya Umberto Safoya hadda si kale u dhaho meeshii laga galayay Sid Barqash argayro ku taalay oo calanka ajuuraan ku yaalay la baabi'iyay waxa kale oo la baabi'iyay qayb kamida uu soo galaa dhulka oo mashaariicdan dhismayaashan casriga laga rabo in laga sameeyo korniishkii Muqdisho waa wada xeebta marta oo curwa la wareegatay ilaa tagayso xarunta dad dhigista ilaa dekadii hore duqda tagayso marka waa area iyagoo dhan dalxiisa saaxiibkayga Yaasir ka hadli doono wixii dalxiis la xiriira iyo potentialka ay u leeyihiin meelaheena taariikhiga haddana dhulka duruufahaas adag wajahaya maanta waa dhul markii ugu yar tahay qaarkood inta soo 100 sano jirto meelaha hadda wajahayo duruufahaas waxa kamid ah qasrigii lagu soo dhaweeyay Ibn Battuta intaanan la dhisin guriga curubo qaybta swimming poolka curuba laga dhisi doono waxa ku yaalay sidoo truly sheegayo aqoonyahankii Talyaaniga ah waxay ka sameeyeen Talyaaniga markay imaadeen baaritaano arkeolojiyada ka sameeyeen dhul meesha waxay ku arkeen areada waxay ku arkeen qasri ay u bixiyeen qasrigii lumay qasri markii dambe la ogaaday inuu yahay qasrigii reer Al Muzaffar
المزفر waxay ahaayeen saldanad kamida sulaala kamida sulaalooyinkii maamulay saldanadii Muqdisho gurigaas waa gurigii lagu soo dhaweeyay Ibn Battuta area-daas ku yaalay isna wuxuu ku tukan jiray sida taariikhda ay sheegayso masjid Fakhruddin wuxuu ku tukan jiray area-daas uu tilmaamayo taariikhda ay tilmaamayso area-daas ku yaalaan nasiib daro anagoo u jeedno anagoo maxaa la dhahaa isaga joogno horta agteena lagu baabi'ina lagu dudumina waana wax aad looga xumaado mudanna ina ka wada dhiidhino markay ugu yartahay caloosha ka dareenno horta ina ogaano wax la duminaya inay aatharteena tahay huwiyadeena ay tahay isa ahayn dhismayaal duq oo meel yaalo oo kuwa dhalaa lagu bedelay inay isa ahayn ay tahay yani identity-geeno la dagaalamay inay tahay